haweenku waa lafdhabarta bulshada waxayna door muhiim ah u yihiin jiritaanka ummad kasta oo nool gaar ahaan haweenka ganacsatada ah waa udubdhaxaadka dhaqaalaha qoyska iyo koritaankiisaba hase ahaatee marka la fiiriyo haweenka waddankeena waxaa jira caqabado dhowr ah oo ay ugu horeyso duruufo dhaqaale oo ka jira waddanka oo saameyn ku yeeshay haweenka Soomaaliyeed marka ay doonayaan inay abuuraan ganacsi si ay bulshadooda wax ugu soo kordhiyaan haddaba bangiga Amal isagoo ka duulaya horumarinta qofka qoyska ganacsiga iyo bulshada waxa uu istaagay inuu maalgeliyo garabna istaago haweenka leh hal abuurka ganacsi waxa uu bangigu u soo kordhiyay barnaamijka Hodmiye oo ah barnaamij lagu maalgelinayo haweenka ganacsatada ah si loo dhiirigeliyo korna loogu qaado ganacsiga haweenka Soomaaliyeed waxaana ka faa'iideystay haween gaaraya 3,000 oo qof oo ku kala sugan dhammaan gobolada dalka waa kan gudoomiyaha guud ee bangiga Amal Dr. Saciid Cali Shire oo inoo sharaxaya barnaamijka Hodmiye iyo sababta ay dumarka ugu xusheen in la maalgeliyo dumarka asbaabtan u xulanay qayb badan oo kamid ah Cabdi baa sheegay oo daraasado badan baa muujiyay inuu xiriir ka dhaxeeyo toos ah direct correlation isbeddelka ku dhaca dakhliga hooyada iyo tayada nolosha qoyska isbeddelka ku dhaca dakhliga hooyada iyo heerka waxbarashada carruurta isbeddelka ku dhaca dakhliga hooyada iyo levelka nutritionka carruurta yani daraasado oo mutawaatir aad u fara badan baanu aragnay oo markii hooyada dakhligeedu $1 ku darsamo in saameyn toos ay ku yeelanayso nolosha qoyska nolosha carruurteedii heerka waxbarashada carruurteedii zamankaynu maanta joognana access to finance waa muhiim dadku inay la macaamilaan bangiyada waa muhiim dumarku waa qayb weyn oo kamid ah bulshadii mashruucan wax faa'iido lagama rabo yani waa qarad xasan sida sheekhu sheegay qofkii 500 la deemiyo 500 buu soo celinaya qofkii 1,000 la deemiyo $1,000 buu soo celinaya marka hore waxaan siin doonaa dumarka tababar waxa laga yaabaa dad badan oo heerkooda waxbarasho hooseeyo marka tababar kooban oo fahanka ganacsiga waliba ganacsiga casriga hadafku waa in dadku noqdaan dad hal abuur ganacsi haddaba kuwani waa qaar ka mid ah hooyooyinka ganacsatada ah ee ku sugan magaalada Badhan ee gobolka Sanaag waxa ay ka waramayaan oo inoo sharaxayaan barnaamijka Hodmiye ee bangiga Amal siday uga faa'iideysteen ما شاء الله وحويان أنا قانو دكان كان وير وحوجا عن مركي هاي وحوين بكاردي من أيها وحيسي عمل بان بايسي لعق إن وحويان وانكو قبصدي وحولان صوغ الشدي حولها أنا أركسان أو عن ليدي دكان كي هدوا وعي هاي إن مكينة دندبدي نابان كصوغ داي وحويان وحوين أو فائدة أبان كدافي وحن أركا إن دكان كي يسبدل كويمي وعن oo ay hadda meel fiican ay marayso baan bangiga ka qaadanay lacag hadaan ka qaadanay wixii awood waan u yeelanay inaan waxbarashada iyo ganacsiga isku kay hagaagaanin marka waxa weeyaan in hadana waxaan u mahad celinaynaa bilasha waxa fiican meesha ka furay oo aan la siiyay deeqaadka oo aan sida fiican uga sugay oo anaguna aan ka deyn baxnay